magaciga waa Mudane Cabdiraxmaan Boor MCA laga soo doortay Saanqur oo hadda ah Deputy Majority Leader Garissa County Assembly oo si sharcina ku joogo sharci maxkamadeed oo noola keen haddana sida arkaysan xafiiska Majority Leader gaan fadhiya inaga shahidka ah maxaa u maleeyni arimaha aan rabo inaan u jawaabo baraha bulshada speakerka uu galiye waxyaalo been ah been ku abuur ah oo nin hadda madax ah ay ku fiicneen oo meel badan uu mariye oo media-ga uu ka soo siidayaan raba inaan dadweynaha iyo dawladaba aan u sheego waxyaalaha siday u jiraan awalan horta maxaan rabaa inaan u sheego speakerka iyo dadweynaha iyo dawladda meejan aan joogno waa meel ku dhisan sharci anaga nafteena sharci baa meejan na keene haddii aad nominated tahay iyo haddii elect markii lagu soo doorto ka dambe in lagu gaazeed gareyna intii maata waa ka dambe haddana waa lagu dhaarin markii lagu dhaariyo ayaa la rabaa inaad sharciga ilaaliso anaga ka dambe speaker waan dooranaa speakerkaas la rabo haddana inuu sharciga sii ilaaliyo oo hubsado waxaa u maleyni waxyaalaha dhacay waa wax members isqabsaday oo Azimio coalition-ka isqabsaday dhaxdooda wixii ka soo baxo dadkii waa heshiis dadkan waa walaala nin baa madax mar noqdaa ku kalena mar kale madax noqdaa taa waa caadi laakiin midda aan doonayna anaga wax hadda aan isku qabnana ma laha memberska coalition-ka dad walaal oo isla shaqeeyo oo assembly-gan isla joogo mar walba isla joogo 40 sano soo socod isla joogi doonaanahay wax dhaxdeena hadda dhibkada taagan ma jiro laakiin dhibka ugu weyn waxa keenayo waa speakerka oo dadka isku dilaayo oo memberska isku kicinayo wuxuu ka watan aniga ma ogi aniga xisbi la dhihi UDM baan ka imaadaa sidaad ogsoontihiin UDM waa halka xisbi oo Soomaaliyeed Soomaali ay leeyihiin nin Soomaali uu party leader ka yahay xisbiga asaga ah anaga meejan Garissa County Assembly 4 xildhibaan baan ku leenahay 3 xildhibaan oo la soo doorto iyo 1 xildhibaan oo la soo magacaabay 4 taabaan ku leenahay UDM anaga dharaa hore arinta speakerka uu suubiyay waa arin sharci darro ah speakerka muxuu noqday xafiiska Registrar of Political Parties muxuu noqday Azimio muxuu noqday party leadership u weynaayeen oo go'aan gaari karaan asagii waa majority whip party-ga noqday marka arinta maxaa maleeyay arin aad u fiican ma aha aniga maalin hore baraha bulshada muxuu ku sii daayay inuu dhahay UDM Kenya Kwanza way ku jiraan anaga Kenya Kwanza hadda kuma jirno laakiin hadda anaga maxaan ku jirnaa Azimio waraaq baan u geeyay speakerka muu raacin Registrar of Political Parties haddana waraaq ka imaatay oo UDM xisbiga aniga aan matalayo baarlamaankan hoose waraaq ay qoreen oo Registrar of Political Parties u qoreen oo iyaga rabaan iyaga naftooda UDM inay ka baxaan Azimio ay codsadeen oo loo diiday oo Registrar of Political Parties ay diideen ay dhaheen ma bixi kartiin ilaa laga gaaro taariikh 21 November sanadkan marka speakerka inuu soo fadhiisto go'aan uu iska gaaro uu dhaho nimankan Kenya Kwanza way ku jiraan waa arin sharci darro ah mid horta been buu ku sheegay waana shayagreyn karaa ninka rabo maxaa u maleeyni inigaani la shayagreeni waa arki doontiin Registrar of Political Parties asaga naftiisa waan u diray wuuna haystaa marka horta midda waa sharci darro inuu dhaho niman xisbiga UDM oo aan ku jirin Azimio ku dhex jirta midda horta asaga uma taalo mid asagana qusaysana ma aha Registrar of Political Parties waraaqdi anaga nafteena codsanayno xisbiga UDM inaan ka baxno Azimio noola diiday oo nala Azimio waa ku jiraysiin ilaa taariikh 21 November sanadkan marka asaga horta anaga nama bixin karo awoodana uma laho uu nagu bixiyo meel aan u soconana ma jiro marka taana iyadana insha Allah ta'ala ruling uu ka bixiyay maxkamadan ku celinayna waan tusaynaa inuu ninka wili sharci darro uu ku socdo midda horta waa mid aan rabo inaan clarification ka bixiyo midda labayso arinta uu ka hadlay uu dhahay majority dad baa jireen oo wax saxiixeen iyo wax suubiyeen sharciga ugu lahaa sharcigan raaci sharciga xisbiga
waxaa la rabaa majority whipka in uu waraaq qoro oo u yeero meeting wax meeting oo loo yeero ma jiro majority whipkana kolley waa wareysan kartiin oo waqti oo joogo haddana ilaa hadda maxkamad ku joogo waa wareysan kartiin wax meeting oo loo yeero ma jiro meetingka markii loo yeero in anaga wala joogno oo markaa ninka anaga aan jagweysayna markaa la jagweystay oo markaa sida lagu bixiyo mal raacin taana asaga jeclayste ninka hadda meja joogo inuu meja ku reebto mejana maxaa u malayni ma aha wadan aan sharci lahayn wadan sharci la waaye court order waa jira oo anaga aan soo qaadan oo xafiiskana lagu soo celiyo xafiiskana hadda agtiisii waan joognaa kootiniga asaga muxuu dhigayaa in anaga xafiiska aan joogno marka cabdi iidle oo speakerga asaga uma taalo yaa majority leader noqoni yaa azimiya wax ka noqoni asaga uma taalo taana asaga dantiisa ma aha inuu sharciga raaco baan rabaa inuu raaco yaa muhiim ah marka sharciga asaga wuu diiday wuu ka booday ruling buu bixiyay weligay ma arkin noloshayda sharciga Kenya intaan ku nooleen maxkamad waraaq ka imaata oo order oo nin speaker oo assemblyga maxkamadda orderga Kenya oo dhan meel walba waa ka sharci asaga inuu dhaho maxkamadda iyada waxay sheegtay waxba kama jiro taa kulli asaga aqaana sidii uu jawaabi anaga maxkamaddii waan ku noqonnay hadduu ilaa yiraahdan asaga kulli summon iyo maxaa la dhahaa kootinigi sharcigiisa oo dhinac uga dhacay contempt of court baa la dhahaa in lagu qaadaan insha Allah rajayna oo kootiniga aan ka codsanayna maadaama sharcigooda la raacin haddana hadduu ilaa yiraahdo jimcaha beri compliance baa la fiirinayaa in la comply gareeye ordergi la soo bixi in uu fulay inuu fulin marka macnaheeda maxaa waaye speaker asaga ruling kale u bixi waraaqii wax dhan waa haynaa waan ku dhajinay inuu sharciga uu raacin sharciga hadduu raacin marka maxkamadda u taala maxkamadda wixii ka soo baxo kulley asaga maxkamadda sidii uu kala bixi lahayn asaga u taala laakiin anaga maxaa aaminsanahay xafiiskeena inaan joogno xafiiskeenana aan joogi doono mid asaga uu naga qaadi karana u jirin arrimo kale oo maxaa jirta uu ka hadlay uu dhahay dadka dibadda aada maalin hore oo shaqada u kacay inay asaga uu war ka haynin waa iska nasiib darra dadka baxay waa dad madax assemblygan baa dire waraaqahooda oo dhan oo lagu dir asaga naftiisa ku jira asaga naftiisa maxaa haynaa video markii visa uu raasanayay video maxaa haynaa markuu visa uu raasanayay UK isla joogna oo faraha laga qaaday waraaqdii asaga ku qorna anima ku jirin ani shakhsi ahaan ani dantayda aan u aaday ana is sponsor gareey lacagtayda aan isticmaale assemblygana lacag kama sugay aniga visahayga markaan helay oo aan u jooday meetingka aniga shakhsi ahaantayda meetingka codsada conference-ka invitation baa lii soo diray invitationka lii keenay aniga sponsor bank statement-kay aan ku tagaani waraaq assemblyga laga qoray ma jirto horta midda inuu ogaadana waan rabaa ani shakhsi ahaantayda aan ka hadlaa laakiin cadeen maxaa taala asaga cabdi iidle waraaqda asaga uu ku qoran yahay dadka baxay majority leaderga dadka baxay oo dhanba ku jiraan ilaa education maxaa malayn labada gabdhood oo kale uu dhahay wax hadda maalintii maxaa ka soo yeertay inuu dhahay committee-da xagga aada education waaye hal ruux oo committee education ku jira ma laho been buu sheegay waa nin hataa war aan ka hayninba assemblygan maxaa malayn inaa ogaato waa yaa committee-dan ku jira yaa committee-dan ku jirin mheshimiwa qatra iman education committee bay ku jirtaa asagana muxuu dhahay hal ruux oo ku jira ma laho committee-da ku jira ma laho invitationka asaga educationka lix muu dhigaynin conference-ka asaga waa inuu haddana ku noqdo asaga naftiisa uu ogaa conference-ka muxuu ahaa education social science and humanities cumar oo meja socde humanities side uu ka socde because wuxuu ku jiraa county affairs humanities iyo NGOs iyo wax oo dhan bay hoos imaata marka maxay ku tusi ninkan waaba nin amikan buraha bulshada iyo dadweynihii iyo been ka sheegayaba nin madaxna saa kuma fiicin inuu beentaa banaanka la imaado hataa hadduu war ka haynin committee-da yaa ku jira iyo ku jirin inuu maxay ahayd bal soo noqdo oo research iyo wax uu suubiyo laakiin maxaa ku fiican inuu soo noqdo xafiiska uu imaado xafiiska uu ku soo noqdo bal uu weydiiyo education committee ku jira wixii oo dhan hoostiisa imaata yaa ku jira county affairs committee yaa ku jira health committee nimankan leadershipka majority leader minority leader every committee members bay ka yihiin every committee walbaba oo assemblygan hataa ma aqaana sharci marka maxaa ku fiicnaan lahayd horta inuu sharciga barto standing order oo nusna la akhrin nus la dhaafi oo inta kale hataa u aqaan inuu soo barto bal isku noqdo
yaa u fiican maadaama nin madax maanta speaker uu yahay oo maamulaayo mejan nimanka committeeda nin aan ku jirin meja horta baxay ma jiro assemblygaana dire waraaqahooda waa la hayaa asaga naftiisa ku jire wuxuu u hare maxay ahayd inuu kubkan suubiyo haddana wuu ku fashilmay hadda markaa muxuu rabaa inuu weji haajisto oo dadkii baan dhexaadin rabaa iyo dad baan suubin rabaa iyo wax uu rabaa inuu keeno nin dhexaadis u socdo ma laho asaga horta azimiyo wax ka gala ma laho dhexaadiskeedana wax ka gala ma laho azimiyo annaga meel iskaa soo dhacayna leadershipki arrinteenna Kotini bay taalaa Kotinigana go-aan buu soo gaaray haddana father orders enforcement in enforce gare orders kaasaan codsanayna hadduu ilaa yiraahdo jimcaha beri baan la ogaan doonaa